بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal muuqaalkan oo aan kaga warrami doona insha allah dardaarankii nebiyullaahi yacquub calayhi salaam. maxaynu u dooranay dardaaranka? sababtoo ah waxa weeye qofka aadamaha markuu dhimanayo waxa ugu qaalisan agtiisa ee uu ehelkiisa iyo qaraabadiisa uu la jecel yahay ayuu u dardaarmaa. marka waxaynu baranaynaa bal ambiyada iyo rususha ilaahay calayhim salaam maxay u dardaarmeen dadkoodii iyo ehelkoodii. ilaahay baa ku xusay qur-aanka subxaanahu wa tacaala fi suurati albaqara. wuxuu ilaahay uu yidhi am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi qaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo inooga qisoonaya arrintaa ayaa wuxuu leeyahy am kuntum shuhadaa, war ma goobjoog baa ahaydeen id xadara yacquuba almowt, markii nebi yacquub calayhi salaam uu mowdkii iyo dhimashadii iyo geeridii ay kusoo xaadirtay ee uu dhimanaya. marka dabadeedna uu u dardaarmayo ehelkiisi iyo ubadkiisi. id qaala libaniih, markuu ku dhahay wiilashii iyo caruurtii uu dhalay oo dabcan ahaa 11 wiili iyo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo caruurtii nebi yacquub ka mid ahaa. taarikhyahanadu waxay sheegayaan in nebi yacquub uu ku dhintay dalka masar, waayo qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay suuratu yuusuf in nebi yuusuf calayhi salaam markuu boqorka noqday ee caruurtiisii iyo ehelkiisiina ay isbarteen inuu yidhi ii keena ehelkiinii oo dhan, u'tuunii biahlikum ajmaciin, ehelkiina oo dhan ii keena. dabadeedna nebi yacquub iyo wixii ka farcamay ee asbaata loo yaqaano oo dhan inay u guureen dalka masar. marka nebi yacquub inuu ku geeriyooday dalka masar, markuu dhintayna meydkiisii la keenay dalka falastiin. sidaas baa la tilmaama. marka nebi yacquub calayhi salaam qur-aanka ilahay wuxuu nagu sheegay inay geeridii kusoo xaadirtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga waramay dardaarankii uu wiilashiisii iyo caruurtiisii oo uu nebi yuusuf ka mid yahay uu u dardaarmay isagoo leh id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi, maxaad aniga gadaashay, aniga dhabarkayga, aniga markaan dhinto kadib maxaad caabudaysaan. waa arrinta yacni ugu muhiimsan ee uu ka dhimanayo ama uu ka tegayo nebi ka mida nebiyada ilaahay. maxaad caabudaysaan buu yidhi. dabcan maanta dadkeenu ama markay dhimanayaan waxa ugu horeeye ay ubadkooda ugu dardaarmaan waxa weeye warniya u shaqayso, caruurta anfac, reerka anfac, adduunyo, waxyaale adigu adduunye ama dunyawiyun baa loogu dardaarmaa. laakiin u fiirsan ambiyada ilaahay iyo dadkii saalixiinta ee asfiyada ahaa ilaahay uu doortay, waxay ubadkooda iyo duriyadooda ugu dardaarmayeen maxaad caabudaysaan anigu markaan dhinto kadib. qaaluu waxay dhaheen nacbudu ilaahaka, ilaahaagan u caabudaynaa, ilaahi nebi yacquub, ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiim, ilaahaaga kow iyo ilaahii aabbayaashaadii oo ahaa ibraahiim wa ismaaciil wa isxaaqa ilaahan waaxida, ilaahaasoo ah ilaahi nebi ibraahim, ahaana ilaahi nebi ismaaciil, ahaana ilaahi nebiyullaahi isxaaq calayhi salaam. intubana waalid bay u ahaayeeno dee nebi yacquub calayhi salaam wuxuu ahaa yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim. ismaaciilna adeerkii buu ahaa oo walaalkii la dhashay isxaaq ahaa markaa la dhashay. marka waa halka ay culimmadu ay ka qaataan oo adeerku waa waalid oo waxa weeyaan aabaa'ika buu ilaahay yidhi, aabbayaasha. marka aabbayaashii waxaa la soo geliyay ismaaciil calayhi salaam oo u ahaa markaa waxa weeyaan nebi yacquub adeer u ahaa. iyaguna waxayn ambiye iyo rusushii ilaahay bay ahaayeen dhammaantoodba calayhim salaam. marka ilaahiye
ilaahaaga iyo ilaaha aabbahaagii ibraahim iyo aabbahaagii ismaaciil iyo aabbahaagii isxaaq ayaan caabudaynaa kaasoo ah ilaahan waaxidan ilaah keliya wanaxnu lahu muslimuun annaguna muslimiin baanu nahay macnaa waan isu dhiibnayo waxaan u nahay markaa kuwo ilaahay u hogaansan subxaanahu watacaala islaamkuna macnaheedu waxa weeye alistislaamu lilah walinqiyaadu lahu waa inaad ilaahay isu dhiibto una hogaansanto awaamirtiisa oo aada ku adeecda ilaahay subxaanahu watacaala ambiyaduna dhammaantood dad muslimiina bay ahaayeen rasuulkuna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam naxnu macaashara alambiyaa annagu haddaan nahay ambiyada sidoodaba waxaanu nahay awlaatun cillaat diinuhum waaxid yacni hooyooyin kala duwan unbaanan dhalay laakiin diintaydu waa diin keliya ilahayna qur-aanka wuxuu nagu sheegay subxaana watacaala wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuulba ma dirin haddaan rasuulba diro waxaan u diray in ay dhahaan laa ilaaha ila allah iyo inay aniga i caabudaan ayuu ilaahay uu yidhi subxaana watacaala markaa rususha iyo ambiyada diintoodu waa diin keliya waana diinta islaamka manhajka iyo shareecadu way kala duwanaan karta walikullin jacalnaa shurcatan waminhaaja sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay soo ma qolo walba ama nebi kastaba sharci ama manhaj ay raacaan oo maaragtay xagga fiqiga ah ku saabsiisan ayaa markaa waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala uu siin jiray laakiin caqiidada iyo asalku marka horeba waxa weeye waa hal diin iyo hal ilaahay la caabudo iyo in qiyaamada iyo aakhiro la rumeeyiyo iimaanku way ka wada sinaayeen wayna ka siman yihiin waana hal diin waana diin alislaam waxaan ka faa'iidaynaa markaa qisadan muhiimadda ay leedahay towxiidku iyo muhiimadda ay leedahay in ubadka iyo caruurta aada markaa waxa weeyaan ku koriso naftaadana aada ku koriso marka ay naftu qadhaadhaatee meel daran ay gaadhana waxa weeyaan inaad ugu dardaaranto ehelkaaga iyo duriyadaadaba ilaahay subxaana watacaala ahlu towxiid ha inaga yeelo jasaakum allah khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu